رمضان كريم. makuu bixi waayeen timaha ma ka warwarsan tahay timahaada ama timaha gabdhahaada ciida wixii aad marin lahayd oo ma isleedahay alla ma marin kartid jilciso maxaa timaha ku jilcisaa yacni isdhexgalka uga baabi'isa yacni timaha isku dhagaayo timaha daadanayo siibashada tima adayga bixi waaytaha intaasba xal ayaa loo helay oo waxaa lidiin hayaa shaambo iyo saliid iyo nafaqo timaha uga qayb qaadanayso quruxdooda iyo muxuu ahayntood bixitaankooda hadda maxaa idin leeyahay insha allah haddii aad danaynaysid biidnillahi alkariim inay timahaada kuu baxaan kuu dheeraadaan dhabarka kuu dhaafaan dhulka kuu gaaraan deriskana kula qaadaan hadda alaabtan ayaa u baahan tahay gabaray macsalaamee bidaarta wiilow adna sidoo kaleeto macsalaamee bidaarta timaha adag timahaada waxay noqonayaan tima haddii aad rabtid jilicsan kala baxbaxsan insha allah waxaad arki doontaa faa'iidadeeda iyo nafaqadeeda weliba si degdeg ah maalinka ugu horeeyo hadda aa ku dhaqatid bil laguma dhahaayo isbuuc laguma dhahaayo hadda sanadana laguma dhahaayo ogow marka maxaa idin leeyahay insha allah ma ku wareerisay injir madaxa ah mase kaa wareerisay gabdhahaada adigoo dadaalayo hagaajinayo madaxooda ma ka saari wayse injir agool timahase ma u bixi waayeen waa cabashadii iiga timiday gabdho badan kuwaasoo soo dhaheen abaayo kasoo hadal biliis injirta wixii aan isaga daweyn lahaynay anagoo dadaaleyno ayay mar walba nagu soo noqotaa waa u jeedaan gabadhayda timaheeda siday xariir u yihiin maasha allah isaga daba dhacayaan hadda alaabtan haddaad marisid ku masaajaysid maalinka ciida injir iyo agool iyo madax oo isku dhegdhegan iyo waxaasoo dhan waxaa leedahay bye bye iyo macsalaam waa saliidii timaha nafaqaynaysay ka ilaalinaysay daadashada siibashada timaha bixi waaye timaha gurmo nafaqo ayay siinaysaa wayna kobcinaysaa haddii ay timahaada kuu bixi waayeen adiga iyo gabdhahaadaba waxaan idiin soo saarnay saliidda dadka waaweyn iyo ciyaal hayahe gabdhow yaan lidinka dhammaysanay saliidii timaha bixinaysa xariirna ka dhigaysa waxaan rabaa maanta inaan kasoo jawaabo gabdho in badan isoo weydiiyey oo idhahay abaayo injir ayaa meelaan ka galna waynay anagoo dadaaleyno injirta waxaa u isticmaali kartaa liinta haddii aad xitaa sidan aad u samaysan kari liinta jeex madaxana ku hool markii aa madaxa aa rabtid inaad dhaqatid ama gabdhahaada aa u dhaqaysid waxaan haystaa 3 xabo liin ah iyo 2 xabo oo moos ah intaas ayaa kaa kaafinayso maalinka ciida injir iska dhaaf iyo agool waxaasoo dhan waxaa leedahay bye bye iyo macsalaamo hadda liinta sidaas ayaan usoo jarjaray 3 xabo kadib waxaan rabaa liinta inaan soo karkariyo oo aan dabka soo saaro digsi ayaan dabka soo saartay digsiga markii aan dabka soo saartay kadib waxaan ku shubtay in yar oo biyo ah galaas biyo ah kadibna dabkii ayaan la soo saaray waxaan rabaa ilaa iyo 10 daqiiqo meelahaas intay liinta iiga bislaanayso inaan ku karkariyo markay liinta ii bislaato ii jilicdo ayaan dabka dejinayaa marka liinta sidaa ujeeda sidaas ayay u karkaraysaa si fiican dab dheer ayaa saaran afaaraha markii aad sidan u samaysid injir oo kaliya madaxaada injirna uma soo dhawaanayso agoolna kaama galayo timaha siimana ma kaa siimayaan maqaarka dhintay ee tinta madaxa ku yaalana way safeynaysaa oo maqaar cusub inay ku abuurto waxa oo yacni bilaabana inay timo cusub oo qurux badan ay ku abuurmaan haddana dabka waa aan ka soo damiyay markii aan dabka soo damiyay kadib ii soo qabowdana waa ujeedaa sidaan ujeeda ayay iigu soo baxday biyihii waxay noqdeen maasha allah biyo yara jiitamayo oo fadhiyo liintana waxay noqotay liin aad iyo aad u bisil oo kaleeto oo jilicsan waxaan rabnaa inaan soo shiidno ee noo noqoto wax yar oo kiriim ah oo qurux badan ayadii mooski inaan isku darsano liinta waa ujeedaa sida u jilicsta waxaa laga rabaa inay saas kuugu jilacdo haddana waxaan soo qaadanayaa in muxuu intood graafadka ama jeega lagu shiido juuska kadibna waan ku shubay kama miirinyaa biyihii liinta aan kusoo karkariyay waan qaboojiyay kaliya wixiisa dhan waan ku shubay kadibna waxaan ku darayaa moos 2 xabo moos ah intii markaas kugu aado hadaa hal qof tahay hadaa 2 tahay hadaa 3 tahay aniga hadda 4 gabar ayaan rabaa inaan u isticmaalo marka muxuu ahayntood waan ku darayaa markii aan ku daray kadibna maxaan rabaa inaan soo shiido alaabtan haddii aad injirka carar tahay isticmaal haddii agool ku wareeriyay haday timaha iska qabsanayaan oo kaleento waa isticmaali karto timaha furfur iyo xariir ayay ka dhigaysaa kadib markii aan soo shiido ujeedaa sidaan ayay ku soo baxda oo kiriimka ah
oo qatarta ah oo jaalaha ah kadibna maxaan suubinayaa waxaan soo qaadanayaa muxuu inta kan waxa lagu miiro kaleento markii aan soo qaadanayo qashinka yar ee ku jiro ayaa iska miirayaa sababtoo ah sidiisa madaxa ku mirisid madaxaad hadhow wuxuu yeelanayaa qashin shanla ayaa ku dilayso marka sida aan shanlad uga badbaadin lahayn waxaan rabnaa alaab yar oo kariim ah inay noo soo baxdo waan ku shubayaa shabaqa markii aan ku shubana waxaan iska miirayaa qashinkii yacni liinta maadaama oo qobkeedii aan soo jijibinay marka waxaan rabnaa inaan qobkeeda aan iska dhameyno waxaan rabnaa liinta nafaqadeedii iyo mooskii inaan qaadano hadda gabdhow maxaan idin leeyahay alaabtan ciida ka hor isticmaala kuna masaajiya madaxiina haddii uu madaxaada injir lahay ama uu qolof lahay qolofta waxaan ka wadaa agoolka ama uu ku bixi waaye liinta waxay siinaysaa timaha inay bibirqiso inay timo adag ka dhigto waxayna siinaysaa muxuu ahaynto inay timaha ay ka dhigto tumi cusub ee soo saarto aflaaqada timaha dhintay ee madaxa ku jirana way ka saaraysaa inay timaha waxay ka dhigaysaa oo kaleento injirtoo kaleento ee ka hortagto aysan ku soo gelin hadday ku soo gashana ee maasha Allah hal xabo uu ku jiro xitaa oo hore ka dhimanaysa mar labaad aadan ku noqonaynin inta badan injirta waxa keena dadka kulayladoo kaleento meelaha kulaylka jooga madaxa ka dhidayo dadka ilmaha inta badan madaxa loo daba saaluunada la geeyo kale taasna iska dhaafa insha Allah marka waxaan idin leeyahay waxaan filayaa gabdhihii iga sugaya jawaabta maxaan suubinaa maadaama injirna wareerisi dhahay anagoo dadaaleyno oo hooyo oo isbuuci 2 mar 3 mar madax hagaajinayna nafaqa mirneen haddana aysan ka dhamaanin waxaysan uga dhamaanin waxa way injirta ukun ayay madaxa ku reebanaysaa geesaha dhaxda marka tii ayaa soo buqayso mid cusub ayaa ka dhalanaysa adiga midii hore bixisay laakiin ilmihii ayaa meesha u yaalo marka si ay ilmihii uga dishid oo ilmahoodii ay u dhintaan ayaa alaabtan ay ka qayb qaadanaysaa ma fahamteen si ay ilmihii injirta u dhintaan u baaba'aan ay alaabtan ka qayb qaadanaysaa haddana ilmihii weyba dejinaysaa timaha way siibanayaan waxay ka siibanaysaa ukuntii way ka siibanaysaa dhulka ayay ku dhacaysaa jawaab waxaan ku sugaya gabdhaha nambarkayga way haayaan igu soo wareeri dhahayo ku soo celceli war ku soo celi noo soo sheeg yacni xitaa afku waa uga sheeg way ku qanci waayeen yacni noo sideen u sameynaa saa u sameynayna ma fahmin yacni inta ka fahma marka insha Allah marka maxaa idin leeyahay insha Allah haddii aad injir iyo agoolba la dhibaneed gabdhow alaabta isticmaala waxaa laga yaabaa inay gabdho kaleento u baahan yihiin ayagana sidaas oo kaleento aysan fursad ay ugu weydiiyaan aysan helin waa ujeedaa alaabta sida kariim u tahay quruxda jaalaha carafta sida liintii oo kaleeto usoo carfaysa sirtan idinka dabageeyay markaa sidaan liinta aa u marsatid oo u samaysid oo kaleento cuncun ilmaha dhan ma u yeeleyso kadib waxaan ku darsanayaa saliidii hanaansan kids oil waa midda ilmaha hadaa qof weyn tahana midda dadka waaweyn oo kala ku darsan karta laakiin adiga hadii aadan haysan saliid alaali saliid daarta isticmaal saliidan timaha ayaa ka qayb qaadanaysaa dhirirkooda nafaqeyntooda iyo inay agoolka ka saarto kaleento maxaana idin leeyahay insha Allah hadii aad u baahantahay inay timahaada muxuu inta jajabka iyo siibashada ay ka bixi waayaan ee kaaga baxaan si degdeg iyo waliba muddo gaaban waa soo dalba kartaa insha Allah nambarkaygana qaybta hoose ayaan ku soo qorayaa biidnillah alkarim saliid ayaan ku daray kadibna waa isku qasaaya markii aan ku qas kadibna sidaas iyo kusoo baxda kariim hadda quruxda bal fiiriya waa wax yar oo fudud gurigaada ku yaalo ka heli kartid yacni nafaqooyin fara badan u leh oo madaxaadana siinaya nafaqo masha Allah aad iyo aad wanaagsan gabdho badan ayaa mar walba isoo weydiin ayagana dhahaa cirrada wax madoobay ayadana waa soo wada insha Allah marka muxuu inta ani mashquulkayga iska badan baryaha xitaa gabdho badan ay tabay oo arkay masha Allah mahadsantiin gabdhaha si fiican ila socod mar walba waa ku weyn baryaha intee ka baxday xoogaa waa iska yar caajisa laakiin insha Allah hadda waa soo noqday aan isku soo duceeyay biidnillah alkarim ramadaanka dhamaanaya insha Allah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nabad noogu dhameeyo inta dhiman nabad noogu dhameeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwii laga aqbalano oo naga dhiga biidnillah alkarim cuduradan iyo waxyaalahan jirin oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhinac naga maray biidnillah alkarim marka kareemkeeni sidaas uu ku soo baxay madaxaada waa marinaysaa waa ku masaajeynaysaa bac yara la gashanaysaa marka bacdaada gashid oo kuugu huurnay waa ka dhaqanaysaa 3 saacadood ilaa 2 saac kadib 3 saac 2 saac kadib marka ka dhaqdina natiijada adiga arki doona insha Allah fadlan hadii ay tahay markii ugu horreysay soo booqatid waxa laga codsanaa janakar oo qurxin subscribe dhe beelkana on ka dhigo una sii share garay asxaabta assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala barakaat bye bye